aaminida jiritaankaagu waa dariiqada koobaad ee aad ku dooran karto xaqiijinta waxyaalaha ka dhex guuxaya naftaada. qof kasta oo naga mid ahi waxa uu ku riyoonayaa gaarista meel uu u qalmo. waa meel aan hiigsanayno inaan maalin uun gaarno, laakiin waxa aan rabno oo naga dhex guuxaya waxay u baahan yihiin inaynu u marno waddadii aynu ku aanan lahayn hankeenna. inaan la imaanno asbaabta ayaa ah waddadii aan ku xaqiijin lahayn ahdaafteena. aamin naftaada, maxaa yeelay kuwa guulaysta ayaa ah inay iyagu naftooda aamineen. markaa ayaad wax qabsan kartaa, markaa ayaad guulaysanaysaa. haddaadan aaminin jiritaankaaga, haddaadan qofnimadaada aaminin, waxay ka dhigan tahay inaadan guulaysanayn. sidee u rabtaa inay dadku ay kuu rumeeyaan oo ay kuu qiraan nin awoodda jiritaankiisa leh adigoonan is-aaminsanayn? dabcan haddaadan aaminin qofnimadaada oo aadan ogeyn xilkasnimadaada, haddaba markaa anigu kuma aamini doono. inaan ku aamino oo kuu aqoonsado waxa aad rabtid waa mid adiga kugu xiran. dadka ila midka ahina waa kuwo aanan ku aaminayn. aamin jiritaankaaga, waa hubaal inaan aniga iyo asxaabta ila midka ahi ay ku rumayn doonaan, wayna kuu aqoonsan doonaan inaad tahay xidig uun keliya. waxay kaaga xiran tahay inaad raadiso oo aad dib u soo saarto qofnimadaada. kac oo boorka iska jaf. faca way is-aamineen. aamin kartiyada kugu duugan. is-aamin aan ku aaminayn. aaminaada jiritaankaadu waa furaha dhadhanka noloshaada.